booliiska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa ku guuleystay inuu ilaa iyo hadda xabsiga dhigo 9 ka mid ah dhalinyaro kuwaasoo rasaas iyo xabadaba ka dhex riday goob ay dadweynaha ku kulmaan oo ku taalo magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway. Rasaastan ayay ku fureen goob loogu yeero Holmelia, halkaasoo la sheegay in ay booliiska si degdeg ah ku gaareen markii lagu soo wargeliyay in ay rasaas goobtaasi ka dhacayso. Booliiska ayaa sheegay in kolkii horeba ay hore ka soo xireen 5 ka mid ah dhalinyaradaas oo ay horey u muuq iyo magac yaqiineen kuwaasoo ay u taxaabeen xabsiga, waxaana lagu soo waramayaa in sidoo kale booliisku ay dabagal iyo baaritaan ku wadeen ilaa ay kasoo qabteen 4 kale kuwa oo ku lug lahaa israsaasayntan ka dhacday goob dadweynaha ku kulmaan. 9kan dhalinyarada ah ee la xiray xabsigana ku jira ayaa lagu soo waramayaa in ay da'doodu u dhaxayso 17 jir ilaa 20 jir, kuwa oo muujinayo in ay yihiin dhalinyaro aad u da'yar. 3 ka mid ah ayaa la horgeyn doonaa maxkamadda magaalada Oslo, halkaasoo lagu soo oogi doono dacwado ay ka mid yihiin in ay rasaas ka rideen goobo dadweyne, halkaasoo ay weliba iyaga oo aan sharci u lahayn ay adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Waxa uuna sheegayaa qareenka booliiska Henrik Nicolson in ay hadda daba socdaan baaritaan adagna ay ku hayaan kiiskan ku saabsan xabadaha laga rida goob dadweynaha ku kulmaan oo ku taala magaalada Oslo. Waxa uuna Henrik intaa ku daray in aysan nasiib wanaag jirin cid ku dhaawacantay rasaastaas isdaba joogka ahayd ee darandooriga u dhacaysay ay goobta dadweynaha ka rideen dhalinyaradan lasoo qabtay ee 9 ah, haddana ay booliiska ku hayaan xabsiga. Dhammaantood ayaa la sheegay in lagu soo oogi doono dacwad ah in ay si sharci darro ah u haysteen hubka noocyadiisa kala duwan uguna adeegsadeen goob ay dadweynaha ku kulmaan, taasoo haddii ay rasaasta sida darandooriga ay u rideen ay hoos ugu dhici lahayd ay dad badan dhib, dhaawac iyo dhimashaba u geysan lahayd. Arrimaha ku saabsan dhalinyarada adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale torreyda iyo ganacsiga daroogada noocyadeeda kala duwan ayaa ku sii badanaya magaalooyin badan oo dalka Norway ah, iyadoo hay-adaha ammaanka, booliiska iyo kuwa kaleba ay ku jiraan heegan buuxa oo ku saabsan dhalinyarada loo adeegsanayo falalka dambiyada kala duwan. Waxaana jira dhacdooyin badan oo soo noqnoqda kuwa oo ay ku lug leeyihiin dhalinyaro aad u da'yar, iyadoo ay u dambeysay 15 jir Norway, Sweden iyo Ingiriiskaba dilal ka geystay oo hadda Oslo lagu maxkamadeynayo. Halka warka kiisa ugu doorka horan uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.